dhibaatooyin aad u badan ay ka soo ifbaxayaan magaalada Hargeysa kadib markii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Ciro oo uu ugu baaqay dhammaan taageerayaasha inay iskugu soo baxaan berrito fagaaraha weyn ee xisbiga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Haddaba dad badan oo taageersan xisbigaasi ayaa waxay iskugu soo baxeen magaalada Hargeysa waxaana dadku ay inta badan wadada ku marayeen erayo lid ku ah madaxweynaha Somaliland. haddaba dad badan oo siyaasadda Somaliland indhahay ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynuhu uu caburin ku hayo siyaasiyiinta. Cabdiraxmaan Ciro ka hadlayna waxa uu yiri dictator ku hadho dictator yeeli mayno sharciga lagu tutay yeeli mayno doorasho la yeeli mayno xorriyadaynu ku dagaalamayna u dhimanayna salaam iyadoo ay dad badan iskugu soo baxeen fagaarahaasi waxayna halkaasi khudbad uga jeediyay gudoomiyaha xisbiga wadani waxaana hadaladiisii kamid ahaa hadlaya waa xaruntii xisbiga wadani nasiib darro saaka waa berigii xarunta waxa qabsaday ciidan shaqaali ka shaqeynayay kuwii masaxayay iyo kuwii xafiiska joogay waa laga dareeriyay imaka si nabad ah ayaanu ku nimi xafiiska inkastoo rasaas fara badan waxaan u sheegayaa shacbiga reer Somaliland in xisbiga wadani iyo xisbiyada kaleba uu dastuurku fasaxay iyo shuruucda dalkuba inay isugu yimaadaan kulan inay isugu yimaadaan xafiisyadooda inay shacbiga la hadlaan inay taageerayaashooda la hadlaan ciidamada booliiska waxaan soo jeedinayaa waxa waajibkoodu yahay in muwaadiniinta nabadgelyadooda ilaaliyaan muwaadiniinta halkan timi ay rasaasta ku ridayaan waxay ka mid yihiin muwaadiniinta waajibku dastuurku u yeelay inay nabadgelyadooda ilaaliyaan waxaanu kala shaqayn doonaa nabadda waxaanu xaq u leenahay xisbi siyaasi ah oo ajenda siyaasi leh oo dalkan horumarkiisa iyo nabadiisaba ka shaqaynayaanu nahay marka taageerayaasheeda inaanu gaarsiino ahdaafta xisbigaanu xaq u leenahay inaanu u warranaanu xaq u leenahay waxaan u sheegayaa dhammaan maamulada gobolada xisbiga ee shanta ay hadhayna inay isugu yimaadaan xafiisyadooda inaanu halkan nimaadno maalin walba xaq baanu leenahay maanta qura maaha berrina waanu imanaynaa goboladoo dhammina way isu imanayaan xafiisyadooda isugu imanayaan markii uu gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro uu soo baxay banaanka marka uu ka soo baxay xarunta xisbiga ayaa jawiga waxa uu noqday sida tan haddaba intaasi kadib markii banaanbaxa maanta uu halkaasi ku soo gabagaboway ayaa waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee Somaliland waxa uu sheegay in halkaasi uu ku dhintay taliyihii aaga bari tii saaka markuu ay tahay 8 barkii gudoomiyaha xisbigu isagoo ummad badan wata ayuu yimi goobtii ciidankii boolisku markay la hadleen ay rahan ka joogso meesha iyo waxa sameyn uu diiday gacmaha isqabsadeen ummadii oo dhan intuu yeedhay gacmaha qabsaday ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay inta gacmaha isqabsadeen saf ballaaran galeen oo ummadii oo dhan ay gacmaha soo wada qabsadeen ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay askartiina jeeday askartii iyadoo dhowraysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu amaankiisa ilaaliyo lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay taliyihii qaybta bariga goobta joogay toogtay markhaatiyaal bay leedahay waa wax cad sidaas hadabadna gudii ku gala sigay dadkiisa iyadoo sharciga la dhowrayo askartii faraha badnida meesha joogtay uma jawaabin oo ninka wax talaaba iyo rasaastoona uma jawaabin waa garanaynaa magaciisa waa lala xisaabtami doona waxaan markaa
sheegayaa cid kasta oo nabadgelyada danaysa iyo ummadda reer Somalilandba wixii saaka halkaa ka dhacay waxa jira askari kale oo dhaawaca oo dhagax lala dhacay oo groupkaas isaga la socday la dhacay oo aan tallaabo qaadin oo imika dhakhtarka yaala wixii nabadgelyo darro ku saabsan ee saaka halkaa ka dhacay aanu ka digna shalayto ee rasaasta dhacdaya ee askarta wax lagu dhuftaya ee buuqa halkaa ka dhacaya waxa ka